هذا البدن مركوجه الرئيس مدحدا هلك فرديدا هي ددوينها دمانتين وان سلامي سلام كدب هلك اسمه تاجن هالضينان وربضن يدين شيء وحكى لي يعني ستاجي إن أنا يدين شيء سببتي يقول كلفتي أنا بوجن قرو وجنير أنا قرو وحوي يصدق الريموت أي موقتي مدي وحوي دقنك يا أفكو حوجي سوح كجرا بادية أو بادية حول دقتها بادية بيرليدا هي بادية كلوميس وحي موقتي دلكينو إنه مقالو صوصر أو باديه أما بيرها نقط أما بدها نقط أما حول دقتها نقطة إن لقصو قلقلايو ومقال الله إيمان عليه أف مقالو أف قومي ديد معه أف مقالو وأفف كلا دوان أو دقن كان مقالدو أبوره أو أف صومالينا كجرايو لهجة كسهلة هذه مركا وحان كبغيا إن إريقو وحو كردشا دقنك ليش وحال السمين أيو إريقو كسما اسمه هدي مركا حول دقشدي لغيبت هدي بيريه لغيبت هدي كلميسكي لغيبت وحان فيليا هدا انتينن مقاعدة أف صوماليغا إيه كلون كليه هاي وحي قانا إنو مجر هدي أينو دقاقنو أينو باديها حول دقتها أتغنو جيدي صومالي دو درتي صومالي دو إيه مقاعدة لهاي عيد تقانا هل كان واكو يري سببتو حوي درتينا way dhamaatay dadkiina magaalo ba soo galay kolka magaacadii dhirtu way tagaysaa qodobkaas weeye aanu arkay in hadii magaalo loo soo dhamaado yani dhaqankii naftiisu inuu dhaawac maayo leesh dhaqanku waa shaqada dadku ay qabtaan erayaduna waxay ka abuurmaan shaqadaas iyada iyo waxyaalada la isticmaalo nooc kasto yahay ayuu ka dhashaa kolka eray bixintii ayaa halka gabaabs ku noqonaysa qodobka labaad ee ay igu kalifay waxa weeye laba af oo qalaad ayaa si xoog leh dadkeen u qaatay oo waxaan arkaynaa af carabi iyo af ingiriis ayaa iskuulada laga dhigaa af soomaaligi lama dhigo waliba waxaan ka xumahay heedaha dawladdu inay af ingiriis lagaga shaqeeyo lagu qoraayo waxa weeye kolka labada af iyo dhaqamada ay wataan waxay meesha ka saarayaan aakhirka haddii 50 sano oo dambe ay sidaa u socoto inay noqonayso yani af Soomaaligi inuu gabaabsi galaayo waxa kale ta saddexaad ee igu kaliftay ay tahay inagu waa qaxnay waxaynu adduunkaynu u qaxnay caruurteena yaryar ee ama xagga ku dhalatay ama la kaxeeyay la geeyay af Soomaaligi uu ka dhumaya marka waa inay helaan ha yaraato ha badnaate inta waalidku la joogo hadda caruurtaas in ay helaan wax af Soomaaligi ah oo caruurta ay ku barbaariyaan oo ay u sheegaan waxa weeye dhaqankiina halkaas kolka ka baxaya haddii af Soomaaligu dhumo leesh af Soomaaligu waa tiir dhaxaadka dhaqanka weey
ليش والله كيديا أفكو كلكو قرية هديات قرطو واتكو كيدنيسا وحنا دوغا حماي وحن قبا قريس لآنتي أفكا سومالي كمامكم كسنة جري وحفر بدن أو ياشين سميين إن إنك دومين قريس لآنتا إن أمقيه وحكله وأن هذا درين سنة سوغان تينا يدقن كينا أبوانين الصوماليات أيام مسكحدو وحفيدي ترين وعجائب كلك جيل بجيل بو قد بنجري جيل بجيل بو قد بنجري وحنس ليه هذا الدنيا صوب على هذا وحوي وأف مقالو يدقن مقالو أي يقانين أو أنقبو إنو يهي أف قوميات إنو ناهين أف مقالو وأف بدن سكيني كل كار أبوانين تاني يسوقان ليدي كيدين جري حفيدي جري توي دمادين وأبقى حتى كل كار وحان قرال كان ير عن السيري ملاها هدي وحون لقرو بوغاق بدن بالقري أو كبا حدوين كان يرين قري لكن وحن السيري أما يعني وحالا يريرو ضدك الصوماليات عن يعني أخرسك سيدي رجي يقولي أي شيئين إنه وحين نسكننا هاي ضدك هذا لكن قرأ أخرسك إنه ما بدنا مركا كان عريض وهاين أو سهلا قفكو ودريمي كرو أيام بوكا نقر وحن آديات وقام هاد علينا إياها ضد فربضان أو كالين كجيستي قارهان أكاديمية ده علمية فنكا يسوقانتا ما هاد قارا أيانو علينا إياها وحانا نسو جيدين إياها أنا سو جيدين إياها إني أرورين كساميان oo la tago dhulka hadda wax laga helaya dhirteeni kala duwaneed in la qoro magaacadii la soo ururiyo dhaqankeeni wixii jiray wax badan baynaan inagu hadda aqoon in la soo ururiyo waqtigu waa kulay aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa guddigan iyo kasmo guddigan halka inoo hor fadhiya iyo kasmana mahad gaaraan u celinayaa waan filayaa edition kale oo hadda ku maqan iyaga oo soo saari doonaan oo ka ballaaran inay degdeg inoogu keeni doonaan aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa imaanshihiina dadkii hadlay mahad gaaraan u celinayaa dhammaantood waxaan si gaara prime ministerkii Soomaaliya ee hore Ali Maxamed Geed fikirkii uu soo jeediyay ee Soomaaliya inay yani jeebkeeda gacanta geliso oo ay ku tala gasho inay dhisato ma halkan oo kaliya ma theater museum library saddexduba halkaas iyago qalfafay taagan yihiin sidaa uu prime ministerkii hore soo jeediyay Soomaali ha isku tashato yaynaan wax ka sugin ajnabi aynu inagu keena waxaya waliba ganacsatada Soomaaliyeed waxaan soo jeedinayaa arintaas saddexda meelood inaynu xooggeena saarno oo ganacsatada Soomaaliyeed ay kaalin muhiim ah qaadato innagana qofkii 100 helaya iyo kii 10 helaya iyo kii 20 helaya sida uu prime minister soo jeediyay aynu yeel aad iyo aad baad mahadsantii mudane dalxa aad u mahadsanyahay waa lahjado afaf ma aha lahjada weeye
lahjadadeennana waxaynu u baahannahay qoraal af Soomaaliya oo cid kastaaba qorayso laakiin ku hadalku ha noqdo lahjadaha laakiin inaynu isku dayno afkeenna inaynu qoraal rasmi ah oo qof waliba uu qorayo inaynu samaysano aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin سلام كدب أكاديمية علم فنك يسوعانتا ومدح ذي فضيلو وحنقول ما هذا علمنا قرآن بوكا مدن عبد الحاش عبد الله إنه أكاديمية كانوا اللي ودافر بوكيسا أنت صار إلى موظفين كسرة أمد الصوماليات oo ayaan hoteelada lagu daafurnaha lagu daafuro meeshii loogu talagalay aad iyo aad aan uga mahadcelinayna oo aan baryayna akademiyadan taariikhdeeda jiilka da'da yar aad u maxkuma yaqaanaan laakiin hadda ay baranayaan waxay heela saldhigga dhaqanka iyo hidaha iyo taariikhda Soomaaliyeed dawladii hore ma ahayn science ayaa ku jira ama cilmi ma ahayn hidaya dhaqan iyo taariikh kaliya culumta kala duwan qaybaheeda muhiimka ah oo dhan ayay cilmi baaris ku sameeyay jirta waxaan xasuustaa ama macallin ah mashruuc xanaanada dhaqashada wax soo saarka geela oo dawladda Sweden maalgelin jirta ayaa halkan nooga socon jiray haddaan hay bahda xanaanada xoolaha kulliyadaha jaamacadda ummadda midaan shaqo halka u oolin ma jiro waa u hambaliyaynayaa madaxdeeda iyo shaqaalaheeda inay soo nooleeyaan oo maanta noogu yeeraan xaruntii aan horu naqaanay haddana aan rabno inay sideedii hore iyo si ka fiican ku noqoto mudane cabdi xaashi mar kale aan kaaga mahadcelinaynaa buugga inaad halka keento waxaana rajaynayaa qorayaasha kale ee kusoo biiri doona bahda qalinka inay halka keenaan buugtooda ee aanay hoteelo geyn iyo guri kale mudane cabdi xaashi waa ka duwan yahay dadka waa soo hogaamiyey hiddo iyo dhaqan Soomaaliyeed iyo taariikh afku ugu horeey anigu waxaan aqaanaa 40 sano in ka badan odagan waayeelka hada dadku hadda arkeen isagoo dhalinyaro naqaanay nagoo macallimiin jaamacadeeda uu ka soo shaqeeyay jaamacadda ummadda xilalka uu qaranka ka soo qabtay oo maanta ugu weyn yahay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya xilal badan oo kala duwan uu qaranka u soo qabtay meesha uu qabtana magac iyo sharaf iyo taariikh oo ku lahayo waa la xasuustaa waxaan ogahay in la yaqaano taariikh nololeedkiisa aniga macna gaar ah uu leeyahay mar boqorahayga wasiirada kamid ah dawladdan dhalinteedii meeshay ka timid ragii ka keenay kamid ah isaga iyo rag badan oo meesha fadhiya iyo in maqanba waxaan markaa xasuusinayaa dhammaan inta joogta goobta in loo heeliyo afka Soomaaliga taariikhda iyo hidaha iyo dhaqanka dadkeena iyo deegaankeena waxaan soo jeedin lahay meesha waa laga dhawaajiyay in si xoog leh loogu daro manhajka waxbarashada dalka taariikhda dalal kale iyo ummado kale ayaa la baraa dadkeena ilmaheena in taariikhdeena iyo hidaheena iyo dhaqankeena la barayo suugaanteena soo jeedina laguna daro manhajka waxbarashada xukuumadda maanta talada haysa madaxweynaha dalka iyo dhammaan institutionska labada aqal ee baarlamaankaba in hawshaas ummadda aad u qabataan aad kula dardaarmaya intaa kadib waxaan is leeyahay akademiyada naftirkeeda maxaa loo qaban karaa akademiyada waxaa la rabaa in loo gurmado oo loogu gurmado in la dhiso oo la qalabeeyo oo ardayda Soomaaliyeed ay waqtiyada firaaqada leeyihiin inta yimaadaan wax ku akhristaan waxaan aaminsanahay dawladdu inay ku dadaashay oo miisaanada ku dartay intay laagtahay maanta laakiin shacbiga Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed kala duwan ay gurmad uga baahan tahay inta hadda aan fadhina maanta tabarucaad ay ku heleen jeebkeena maan gacanta gelino marka inta halka fadhida kaliya
hadday cid waliba qof waliba waxay awoodo ay dhiibto waxaan qabaa bishan bisheeda kale inay ka duwanaanayso sidaan akademiyada naftirkeeda. waxaana soo jeedinayaa laga bilaabo haddeer gudoomiyaha akademiyada iyo staafkiisa anaa bilaabaya xafiiska noo fadhiista markii munaasabadu dhammaatay jaabka gacantaan gelina bal waxay tarta hal arkay bil walba $50 $100 oo la keeno oo loogu shubo account ay samaystaan macno ayay u yeelanaysaa taariikhdeena iyo hidaheena iyo dhaqankeena. intaasna waa ku dardaarmayaa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo munaasabada tan lagu daafurayo buugga. waxaan u malaynayaa waxaa la iigu bilaabay inaanu da-weynahay inta goobta fadhida aniga cabdi xashe isu loo filaya inta kale waa naga yeelanayiin iyo balxay. sidaas darteed waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in laygu sharfay inaan daafurno buugga cusub ee u dhashay ummadda Soomaaliyeed waa dhashay gardaadintiisana waa daafuray ana daafuray. buugga waa la iibsanayaa loo iibsan maayo in tabaruc dhaqaale laga rabo in la akhristo cilmiga ku qoran. waxaan hubaa intuu nool yahay gudoomiyuhu editionkii koowaad inuu yahay mid labaad iyo mid saddexaadna intuu shaqayn karo inuu soo wado. sidaas daraadeed ha lagu daysadaan leeyahay wax badan oo qoraal ah way soo socdaan buug badan baa imaan doonta. akademiyada iyo maamulkeedana aadaan ugu mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada gudoomiye Khalid oo intaan noo sameeyana guddiyada kale baarlamaanka iyaguna sectoriska ay mas'uulka ka yihiin inay sidaas oo kale noogu sameeyaan ka codsanayna. aad iyo aad ugu wada mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. qalan sidatada ama aqoon-yahanada hadba sakaa rabto isticmaal iyo fanaaniinta. waxaan kaloo si gaara u salaamayaa halkaan ra-iisul wasaarahayga oo fadhiya Cali Maxamed Geedi ayaan salaamayaa oo waqti aad iyo aad u qalabsan la soo hogaamiyey. intaa markaan ka baxo waxaan salaan gaar ah u dirayaa saaxiibkayga qoraaga kitaabka ama buugga hadba saad jeceshiin Cabdi Xaashi. alxamdulilah arrintan maanta halkaan ka jirta waxay naga dabooleysaa waraadii ahayd in siyaasiyiintu hadal ay ku mashquulsan yihiin ee aysan qoraal lahayn aysan ummadda dhaxal u dhaafaynin. kitaabkan baa nagaga filan maanta wixii ka dambeeya bulshada hadal hayntaas ha naga dayso. kuwa badanna waxaan u malaynayaa oo aniga iyo saaxiibkay Talxa ay ka mid yihiinna iyo Uganda iyo inaan jidka ku soo jirnaan u malaynayaa. intaas markaan iraado aniga waxaa xasuus badan adduunyada siday isu bedbedelayso. aniga qolkaan aan fadhino qolkii af ingiriisiga aan ku bartay waaye. Mennonite mission baa halkaan deganaan jirtay intaan usan gacanka la wareegin oo aan laga dhigin rugta maxaa la yiraahdaa akademiyada. marka falagu waa wareegaya maantana waxaan ku xusaynaa dhaqankayna horumarintiisa ayaan ku xusaynaa. marka ilaah baa mahadda iska leh kuwii hore ugu jirin oo aniga naftirkayga aan maxaa la yiraahdaa horumarintayda qayb ka soo qaatayna iyagana mahad ballaaran bay leeyihiin. haddana salaan ballaaran baan meeshaan uga dirayaa meel kastoo ay joogaan. maxaa la adduunyada geed qallalanba haddaad maalin uu wax kuu galo haddii la ag maraayo waa loo abaal celiyaa waa lacag fadhiista. geed qallalanba ha noqdo.